جاريد الرئام دبي أو كون سلطان وضعني نمو يحلقن يدبندس يوح ترب العريضة كذول يهين سولويت على سولويسين إمكا يتيكو الرئيسي إلى يشرب جيد جفد عنو صوت رئيسين آدي أدوك مهتدي ولا ليال ضلك النبض بوها ولا نبض روبنا وكداي ميرا بدن ولا أردتم ليسوا dadkuna xanaftii doorashada uu ka soo baxado uu ka soo doogsado wuu madaysnaa shacbigii oo meel ku wada joogay intii doorashada ka dambeysay waxaanu la kulannay jawi siyaasadeed oo ka aroosan adduunka gaar ahaan mandaqadaynu ku nool nahay geeska Afrika iyo bariga dhexe oo aynu aad isku xidhannahay waxaa soo baxay loolan siyaasadeed oo dadku dhinac isu raacayo oo nin waliba dantiisa qiyaasayo oo aad uga gadoo badan baa soo baxay marka haddaynu Soomaaliland nahay markaynu eegnay muujadaha isdhaafaya innaga waxa inoo dana inaynu danteena iyo mustaqbalkeena iyo himladeenna halka ay ku jirto aynu dooranno markaad doodo isgarab socda iyo xulfooyin isgarab socda mid raacadana midna cadaawad dadka rumaysan godob baad kala kulmaysaa midna hiil iyo abaal baad ka rabtaa waa iska shaamuraysanaysaa markii ay soo baxday khilaafkan carabta ee khaliijka markii aan dhowrba ka rownay markaanu tala badsanay waxaan door bidnay inaanu isu barbarayno dhinaca Sacuudiga iyo dhinaca carabta Abu Dhabi imaaraadka carabta وانا لويديي فقارية فقبة يميدي وانا لويديي سوتنا وعضها لبضا ميلود إمارات عربتها أبو ظبي إيا السعودية دانتا إنو كو قبنو كما قبنو قرويكا إسكا سوري جيدا أبو ظبي أما إمارات عربتها وينو كو رقمي تجارتنا maanta iyo shirkadaha ugu waaweyn ee horumarka dalkeena gaarsiiyay ee shaqo abuurka inoo sameeyay ee inta badan dadkeenu ku tiirsan yahay ee hal abuurka leeyahay halka ay ku dhaqmeen ay ku koreen waa imaaraadka carabta meel kale maaha marka intaanu imaaraadka ka baydno hantiilayaasheena cadaawad soo jiidi mayno oo meel badan u guuri mayno haddii jaalid ahaan loo eegana ilaa intii ay petroolka heshay imaaraadka carabtu jaaliyadda u badan ee ugu xoog weyn waxay ku dhaqnayd Abu Dhabi Allah u naxariistay odayga laga taliyay Sheekh Said dadkeena ugu roona ilaahay ka Allah subhanahu markii dawladda Afghanistan xaqisay markii dagaalku inuu socday waxay dadku ku tiirsanaayeen waxa ugu xoog roonaa jaaliyadda Abu Dhabi imaaraadka carabta iyo jaaliyadda Sacuudiga oo laga dhimo waay markii Afghanistan dagaalamayay taana waa ku soo socday mar hore ama loogu lahayn ka raacay hal wax bay dhoofinaa shay kaliya marihi community badan xoolaha nool bay dhoofinaa xoolaha noolina waxa barigeena Ilaahay inoo ahaa sayrad waa Sacuudiga inkastoo hadda uu muddo joojiyay haddana waxaan ku rajo weyn oo hadalka socod dartii in uu dhawaan la furin karo oo xooluhu helaan haddii dantaa hore ay tixgelinay waa taariikhdaas فات وجدت تصوص عطا محل كذا دورنا كوا كذا يعني ممكن إنه كوا رعلنا كوا نسمع مرة دي رأي سعيد وكو إمارات عربة شركة وين دي بي وين واحد مطعم أفر شركة وصوت ترتبط بالبراء إلى كشغيان ويقول تكتب هوري تي فرانسيسكا بروين واحد مطعم تأوجو ورأسني heshiis ay noo soo bandhigto oo lala galo dhinaca macaamilka iyo dhinaca dhaqaale iyo dhinaca mustaqbalka fog wax laga dhaxlaayo heshiiska la galo laba qodob baad eegaysaa marka ma waxaad eegtaa maanta maxaad qaadanaysaa mise waxaad eegtaa maxaa raandiis ku noqonaya ee laga helayaa heshiiska waxay ugu wanaagsanaatay waxay ahayd
shirkadda qura ee soo dhigtay badka marka meesha aan dhamayno muddada aynu ku heshiinay inkasta baa gaadha ama 30 ama 20 ama 40 waxaanu ka tegaynaa annaga oo dhisnay dekada barbarmaanta intee laagtay libilaabkeed annaga oo dhisnay 400 oo kilo 400 oo mitir oo dekada iyo wadadii isku xiri lahayd dekada iyo dalka jaarka ah labadaas oo dhisma aqoonta ka tagaysan habeen aniga markii soo dhigay marka ninka heshiiska berbera aad arko u dhigtay maxaynu helay lacagta yar xagga laga wareegay ma waxaynu eegnaa maanta oo adigu aan dhisi karin dekada oo aan adigu dhisi karin maanta ama wadada ma waxaad eegtaa waxayga ay horumaray oo isay aniga kaash aan raamsado oo berita aan raadis lahayn mise wax badan oo dheef imika ayaanu ku soo galin waxay dhisnaa wax dalka mustaqbal noqdo oo dhismo laga tago laba mashruuc oo berbera laga dhisay oo midna ruushka bilaabay oo dekada ahay oo aadagooyada laga yaabo ragii ka shaqeyn jiray qaar caaw halkan loo yiri joogaan oo aanay biladhan mushaahara qaadan jirin dadkii dekada dhisay berigan 4-6 oo dekada berbera ku dhisantay iyo airportka berbera waxay noqdeen raandis aynu ka helay dhibaatadii naga soo gaadhay dagaalkii qaboobaa waxa ku soo kordhay waa intii Mareykanku ku kordhiyay oo ay dhismo maanta loo aayay waxaanu dooran inay dhisaan 400 oo mitir marka kaas uu dhamaaday oo soo saaro macaash lagu daro 400 oo kale maanta ninkii haystay DB Well wuxuu naga ballan qaaday inuu 800 hadda bilaabayo 400 socdaalka iyaga imika dawladda imaaraadka martaqaaday waa uga mahadnaqayna Sheekh Khalifa oo madaxweynaha dalka waa uga mahadnaqay Sheekh Maxamed oo dhaxal sugaha waa uga mahadnaqay Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Rashid waa uga mahadnaqay ku-xigeenka Prime Ministerka oo wasiirka madaxtooyada oo ninka iyaga ka wakiilkan Quraanana sidii wacanayd iyo sidoo ugu helaanaad dalkeena iyo waxaan ka wada hadlayno iyo dhiirigelintii uu siiyay kalsoonidii uu kaga wakiilaha madaxdiisa kale aad iyo aad baan uga mahadnaq soo dhaweynta iyo karaamada ayna siiyeen iyaga iyo shaqaalahooda iyo kuwa caawiyaba aad iyo aad baan uga mahadnaq ninka waxaan ka wada hadalnay waxyaalaha ugu muhiimsan horta waxa aan ku hadlo waxaan ku dhigay Soomaaliland 30 sano ayay dawladda shan madaxweyne dooratay oo 3 doorasho isku bedeshay oo aan ka dhicin geeska Afrika iyo bariga dhexe toona iyadoo aan la ictiraafsanayn ayay dalkeeda xuduud galbeed iyo bari waqooyi koonfur doorasho gashay orinteeda loo yeeday dimuqraadiyad ay dawladdu waaweyn xaj ka dhigayeen oo haddana khilaafaadkeeda iyadoo xalisatay oo hore uga socotay waxay dhamaysatay wixii shuruuc ahaayeen dawladda rabay oo ciidan leh oo garsoor leh oo waxbarasho leh oo horumar leh kolba intii dhaqaalaheedu ahaa hase yeeshee adduunku taa ma tixgelin waxa la ictiraafo looga eexday nin lagu doortay iyadoo ciidan ajnabi waardiye ka hayo oo dhowr boqol oo qof waardiye ka ay doorteen oo aqal lagu xereeyay oo aan kalsooni dad wadan oo aan dalkiisa xukumin oo ku tiirsan lafihiisa inay leeyaan dad shay ayaa la ictiraafay oo waliba dhalinaysa ku taliyeen balageysta annagu taasaan diidnay haddaynu wada hadlayno waxaan u baahanahay waxay ku xiran tahay Soomaaliland oo qoonsataan baa wax lagu hagaagayaan balda taalka ka dayo waxaan kaloo wax tari maayaan waxa u roon waa sharafta iyo karaamada kursiga caalamiga ah qodobka horeeyay wada ka soo kama didin waa soo dhaweeyay waxaan u barwaaya halkee loo maray waa ku subtaay laba waxa kaloo ka aanu hordhignay Soomaaliland heshiis baad la gashay mid base military la gashay mid ganacsi la gashay hase yeeshee dadka adag ee Soomaaliland meel wari jooga ma waa maxaabiis maxbuus waa qofka aan socon karin ee aan meel kale tagi karin hadduu abidda joogo waa maxbuus oo waxa ka dhacaysa baasha inay qaamada oo meel u dhaqaaqa maray oo dalka madax socon karo kaygana ma iman karo
hadduu Soomaaliya joogana baasaboorkii laga dhaxeeyay waa culuuro wax ku fudud wala waa tixgelisaan kaayagina ma tixgelisaan marka ummadda dhamma meel u baxdo ma laha marka dadka dhibaatada qaba haddaad gacan ka doonayso adigu bilowba baasaboorkooda aqoonsada horta waa ku maqan tahay waxaanu ula tagayaa iyadoo garto caynkaas madaxdiisa rajo weyn oo ka qabnaa suurto gasho garowsado waxa kula tagay dareenka qabana insha Allah dhawaan jawaab uu keenayna aan ku farxana aragta sidaan qabo dareenkay tasdacad waxa xoolaha waxaan soo garanay oo ninka dhalinyarada isla ka mahadnaqay ina shalay ahay oo abiyo uga sheekiyay iyagu aan daro kala ahayn oo aan xoolo badan lahayn oo ay Soomaaliland iyo Berbera bahasha la muuqmada looga soo diro dhamaantood dee waxaan ku leeyahay xawla waxa la ilaahay war maanta idinka la annaga inuu jirtaa boodana baa qaawanay laakiin waa iska kibir badan aan faqir ahaan oo baryada ma badsanee aan iska faqir ahaan oo caalaan oo tafeer yaraan haddana waa iska qabweynahay waxba idin bari maynee xoolaha iyaga lagu filanay ninka Sacuudiga saaxiibtii nooga ergeeyo adeer xoolahan meesha barada dhalada riya intaas aan ugu filan wax barnaamij sidoo arrin sheegay silay ayuu arrintaana kamu soo wax diidmaayo waxba habkee iyo seel yeelanay way badneed waxaan ka wada dhowrka qodob aad iyo xoqay ma soo qaaday ee aniga bay xoqayeen waxaan ku heshiiyay war qodobadan waa baday fadhina lagu dhamay karaa iminka waxaan u yeernaa mid walba dadkii qaabilsanaa inay iska hortagaan diyaaradda berita waxa la socda 4 janaan ee ciidamada waxa la socda ninkii kambaanka xukumayay waxa la socda wasiirkii xanaanada xoolaha waxa la socda wasiirkii isgaarsiinta intuu insha Allah wiiga socdo waxay la kulmi doonaan dhigooda iyagoo farsamo ahaan maxaa la isla qabsan karaa leegayo ee aan ahayn baryayo waysi halka waxa ka soo baxa marka uu hadlo iyo kol baalkii talaabadu dhaqaaqdo ayay noogi doonaa labadii maalmood oo joognay annagu fariintii dadweynaha nafray baan gaarsiiyay doodii loo tagay lahaa mar dood loo tagay halkan dawladdan iyo takalo tagnaba doodda umadu baan gaarsiinaa iyadoo ahaanay waa baryotamaya iyo liitaan ahay ana mid qabay ilaahay awood siiyay qayrkeena iska celino aan ugu baahdan ragna aan kula gurgurtaba karno anagu madax hoos leeyahay si wanaagsan oo karaamo leh oo idinba ka aragsan media ayaa intii aan jirin oo waday doodaanu keenayna oo ay wari ma yiraahdeen ama madaxay ka wada ma arag mid ay yiraahdaan seen u dhameeyay ayaa halkan ka heshiinay mooyaan aad iyo aad baan maamulay imaaraad dowladda imaaraadka carabta iyo dadkooda markay berintay maadaan wasiirada iyo jarnada iyo dadka hawlaha iyo baanka iyo cid qaabilsan anigu halkay waan iska noqon ragga aqoontooda bay taagan tahay aniga waxa ahayd iyo waftiga iyagu hogaamiyo wuxuu geeyaa wixii ummaddu u baahan tahay deetan dad khora ah wixii furfuruux ka soo qaada insha Allah taas inuu hirgeli doontaado halkaas soo wada mustaqbalka maxay doonayaan ta Soomaaliya inamada joogayba xabar ka taliya waxay ilowsan yihiin ama dhalinyarnimada ha qaato ama isyeeliyada ka ahaato shalay 2 sano ka hor ama 3 sano ka hor wiilka imika Norwegian ka ra'iisul wasaare isagoo qaxootiya ayuu hargeysa hay'ad yar oo in joog shaqeynay abaalay isagoo hargeysa qaxooti ku jooga xamar jooga kar waayay ayaa maalintii reema gacmeed qora ajnabi ciidan ay ilaalinayaan ku doorteen ayuu Soomaaliland barbaraan xukuumada laga talinayo aqliga caynkaas wuxuu u jawaabi maayo hore uga hadlo ku dheeraan maayo wixii uu yiri iyo wixii uu barnaamijkiisa baaskareeyay waxa laga rabaa meesha uu la tagay uga hirgelinayo waa nafti hafar bay u jira qolada galbeed anigu nafti hafar noqon maayo kisbaayo xawla ka taliya oran maayo saabawtay karo isna waa ila mid oo ma iman kara halkan taas xamar jooga isu wada geeyo iyagoo oo wixii la dhaxmaray iyagoo oo dadka wixii gaaray
hadday dhimasho tahay iyo hadday burbur tahay iyo hadday magaalo la dumiyo tahay iyadoo tiiraadkeedu qoyan yahay oo dadkii geystay iyo kuwii loo geystayba ay nool yihiin oo walaaltinimo laga doortay maanta inay yidhaahdaan dhafoortaabashadaas mid loo fadhiyey mid sugaya ma ahayn waa si aqoonto waxaa ka daran oo ay moogyihiin qolada muqdisho isu wada geeyo soddonkii sane ahayd aynu isku jireen isku dowladda ahayd iyo 10kii sane halganka iyo dibaddaxaya barakaca iyo jabka lahaa waxay moogyihiin inay ka daran tahay oo ka culays badan tahay oo ka khasaaro badan tahay 19 marka laga soo bilaabo ilaa maanta 7 sano dhibta ay u geysteen Soomaaliland iyo khasaaraha ay u geysteen inuu ka weyn yahay intii afweynay ay ku horreeyay oo geysteen waxay ku tuseen dhammaantood ilaa maalintii u horreysay dowlad la yidhaahdo waa loo magacaabaya Jabuuti Carta maalintii laga bilaabo ilaa taa u dambeysay farmaajo waxay tala adduun moodeen anigu waan gubanayaa aniga gurigaygu oranayaa adna dabkeena soo war walaal kaaga kula baqtiyo anna dabka ay soo galmaan uga taagnaa caalamka warkana maxaa doonaysaa ma yidhaahdaan horumar ma yidhaahdaan nabad baan doonaynaa qorshe ma keenaan Soomaaliland iyo mid baan nahay aan maqleen Soomaaliland inagana ilaa maalintii u horreysay soo galay Cabdiraxmaan Axmed Cali madaxweynaha ilaa maanta waxaynu taaganahay waxaanu ogolahay waa walaalahay nabadaha ku noolaadeen waanu wada hadli doonaa weli waxay ugu daraa maanta way liitaane markay wax noqdaan ee dawlad dhistaan ayaanu garami doonaa balabada caqli soo Ilaahay baa isdaariyay horta nimankaas waa kuwa Ilaahay ha u gargaaro Ilaahay caqlina siiyo inagana shirkooda hay lagu geliyo ka warwarmayno dhibaato ay dowladda yimaadaan dadka aan aqoon ajnabiga ah iyo wareerinayaan ka warwarmayno waxaanu si caalamku cadeynaynaa in uu soconayo heshiiska DB World inuu soconayo ka beesku inaanu qaar kale la gelin nin waro mikrofon qaata saddex qodob ayuu lahada hal ceenood laga daay hadduu masaajid ka hadlayo hadduu fagaaro ka hadlayo hadduu cid wacdiyayo haddii xafladu ku tayo yimaado saddex qodob baa marka la wada dheelayso muuqdana la dheeraa haddana saddexdaas way lagu sii koraan barnaamijka Ilaahay ka horeeya waa qaadka nin wali wuxuu baalka maanta ay gudbaysaa baritan uu sii korsada waa masiibaad wuu nagu sii balaaranaya inuu naga yaraado baa dhan walba wuu loo dilay dhaqaale caafimaad dhaqan wax si kasta wuu loo dilay tan labaad waa qabyaalada waxana aan qalanno midiyaha aan qarsan dhammaantiin qabyaalada hala daay qabyaalada joogtay qabyaalada laga baxo ilaa 60kii tima cadde gabaygiisii meeshii loo jiray khayriyada ciyaalkii dhigeysanayay waa SDU markii uu ka reeb jiro oo kada ayana waan soo joogay ilaa maalinta gabayga tima cadde waa la soo celiyay dugsiga qabyaalada waxay u isagooyaan nin wali wuu ku hadlaa bal amarka Ilaahay baashi way siinaa shaqo waxay noo hadlaysaa ku soo haddii Soomaaliba hadda waa gidiyeen inoo qorama waxa way noo dhiman ilaa dhakhtarada wax qala ma aragtay annaga ay qaan waa annaga wax qalo ama yumana ma yaan qoon iska waaninay ka wada hadalay baash waa filaysa haddaba dadkiina aqoonta leh qurbaha jooga ee ka fayo way iska shaqaysta afaf kala yaqaano bal research kala oo baasha wixii lagu dagaalami lahaa iyo dawadii dil lahayd ama hoos u dhig lahayd iyana waa tuu inoo taala iyadoo Soomaalidu waa in la qabto haddana baasha laga socon kari maayo gunteedu waa la soo taabto baasha waa laga socon kari lahayd taana waxaan leeyahay halka cidii dhigaysanaysa halkeeda hal wado oo si daacad ah lagu wado ta ku xigta waa dhaqaale xumada waxa laga wada cawdaa shaqo haddana markaad eegtay magaalooyinkeena mid walba waxa ka shaqeeyay dad ajaanib waxa la wixii shaqo gacmeed oran jiray ilaa Toomaalkii ilaa Kabatolihii ilaa Raislihii ilaa Rijiilihii guriga bal amarka Ilaahay ajriba la weeyay ilaa geershadii bariga horena waxaan ku faani jiray inay Soomaalidu tahay dad iskilid ah oo farsamada aan laga doonfo waana jirtay sababtu waxay ahayd ninku shaqada uu mararka abu qalbiga siriyo kaga shaqaysiinay laakiin waqti weyn u yaraatay way jiraan dadka shaqeeya way jiraan
ولا ظفر ماي لكن وين ويرات marka waxaan u baahanahay hadii dhaqaale naga xumaaday hadii cimiladii nagu adkaatay oo dadka cayroobay oo doogi soo bixi way xoolo yaraanayaan oo laga yaabo cimiladuna inay san u sii socoto abaaruna soo bataan sala filayo soo dashay adduunyadu oo arkaysan ingiriiska oo warigii barafka 2 inch gaarin aad moodaysay in kanado kale uu haashay oo qof walba cimiladiisu daayibshay waxaan u baahanahay inaynu dhaano war noloshii hore ee cawska iyo xoolaha dadku sumiisana way dhamaatay waxa la yiraahdaa rabaa aqliga aan ku noolaan lahayn ubadkeena dambana si u noolaan lahaayeen aynu qaabeen lahayn aynan oranu tii shalay shan kuraariya soo dhoofi warday barankiyo ceergaa maanta arigi malaha abaar ma kana nugaale xoolihii mare taleex sidaad weedeen ma aha galbeedna halkii badaan ma jiro roobku waxaanu heli jiray meelaha qaarkood wajaalo kale iyo 800 mm 600 mm uu heli jiray maantana 300 gaaraba khatar ceergaaba wala hargeysa 5 sano ka hor roobku wuxuu heli jiray 9 maalmood sanadkii maanta yaa rate hadduu 3 cisho helo waana calaamad kalaamkiis bedelay iyo geeska afka dhawad sida waxaan u baahanahay inaan isku tashado oo maskaxda ka shaqeysiino oo inagu hadeynaan gaarin raaxada iyo dhaqaale aanu ka fikirno si midkeen u gaara oo nolosha u bedela iyana aqli u baahan tahay aqoon waxaan ku tuubanaa dadka dibadda joogay ilaa dadka carruurta isku roobta xaja codka baxay inaan ku soo kordhisaa aqli taal u gaarna waxaan u baahanahay inaan aan sideebanu yaalno ilaahay wuxuu na siiyay dhulka siyaalo badan oo khayraadka u dhigay mar dushiis ka soo baxa waa geedka waa roobka waa haruurka mar calooshiis ku jira waa macdan waa diamond waa dahab تعب الربا يا تعب كسوسارة ضد مديسن إسأمسن وحوال قبصة هذا إنك هذا هو صعوتها نقول كاستراب هذا قلت كان هالك قلت كير يقطع قضاء مد بقول هو قبرة حد كبار سامش ورنا قاره هذا كمبر كيانتو مد بقول له هرتاني نقول ماي ورا ده قاعد شغلت أبارة قاعد شغلت هو هذا بره قاعد شغل مريا مسؤول تقنع واحد صوصارة بدينا واحد الشيء إنه كلوك هو بدل كتير بروتين بدو كل ما تبغى وارك هو بدل لما أنت هالمرة قارنا سلوك كروسا هذا هذا كلوك حاجة وبورة أنت بدل دتكم حياتها على ركتي أيها الله تكلم تربط كوريا على كبر ورو قرن كسوة عيروه مية كسر ثلاثة إلى هذا مرة تويس الشهر تمرك واحد وحلا صوب حكرة ضد عقليا هي قلبي أهان يسوع أمري أو iyagu oo midaysan oo dhaqaalahooda isku dara oo maskaxdooda isku dara oo qalbigooda isku dara mooyaane inaanay ka baxin dhibaatooyinka haysta caalamkana wada caynka halkan maxay ku horumartay dawada joogtay aniga halkan waxay ugu horeysay 74kii dee hargeysa ku baxday ya bro sheekh zayd amarka uu bixiyo ninka soo horjeestay inuu jiro hore laga dhaqan jiray ways aaminsanaayeen muranka iska daayay waxay ogaadeen taladaas inay mustaqbalka ku taraysaa laakiin de inaga maxaan ugu soo baxay immisaan gaartay laba soo dambeeyay askari diray soo qaranka jagay yar lagu fusulayay immisaan ku dhaawacmay de umad caynkaas halkay bay gaaraysaa madaxweyne waa lagu doorto naadag baa tahdo waa tanbarigi boorka badan ku jira dhaqaaq de war umada dhaqaaqday ma dhaqaaqo kooxina ma dhaqaaqo umada meel oo jeeda dhaqaaq inay fariintaas naga dhaxaysa haddaynu mustaqbalka doonayno haddaynaan midoobin haddaynaan xagga hore eegin haddii la raaco birool hal qodob oo loo tiraahdo anaga wax noo dhiibo oo tira war meel qaranka loo doonayaa oo afrikana soo raacday la socon maayo waayarna waxa sheegay waan wadana waa wax run ah oo qolaada dadku dhibaatada taagan haddana si waaqaciga oo hadal oo u wada dhameyn aan u wada dhamaysanin oo isku raacin mustaqbal ismaayo tayti inteena nimanka waaweyn garka casriga carruurteena dubi ka galayna oo aan mustaqbal u siinin inagu hadda waqtigeena qaadanay carruurteena la rabaa mustaqbal u isro mustaqbalkan waxaan ugu dhisaynaa inaga oo talada carruurta isu sheegna oo ka baxnaa istuuska iyo raajaca waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xisbiyada mucaaradka oo maxaa laga keenay mucaaradka oo mahadnaq laba goor intii aan dalka joogay khatar dalku galay ama dhiilo ku soo korodhay ama cad ugu qoorsan maalin waxay maalintii ciidamada isqabsadeen ciidamada Puntland ee tukaraq la isku dilayay labada xisbi mucaaradka oo iska garab taagan aad iyo aad ugu mahadsanyihiin maalina waxay maalintii watay de qoladii xamar halkan ka dhawaaqeen maalintaana labada xisbi
si adag oo wadannada labada isku garab taagan waxaana ka arkayseen labadii gorihii guurteeda goray baarlamaanku iyagoo mucaarad iyo muxaafis lahayn iyagoo wadan iyo kulmiye ahayn ee unanimous oo Soomaaliland ayay taageerada arrinta qaranimada Soomaaliland ee berbera ee la soo maagay u difaaceen oo go'aankii xamar mid ka mid soo saaray waxaan u mahadnaqaynaa intii dalkii joogtay ee siyaasiga ee madaxdhaqameed ee sheekh leh ee haween leh ee dhalinyaro leh ee dhammaantood isugu soo baxay magaalooyinka bari ilaa galbeed iyagoo oo muujinaya shucuurtooda midnimo iyo dal jacaylkooda iyo ilaalin mar labaad koonfur soo hawaysanin Soomaaliland waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada degan dunida daafeeda from Australia ilaa Canada ilaa New Zealand ilaa South America qaar degan inta u dhaxaysa ee baalka telefoonka ku dagaalamada social media mid baa halkiis ka soo dhigay tixgabaya oo tibi cadaleeyahay oo uu 1940 Cabdirashiid ugu tiriyay kala bayd oo beedka ugu adag uu ahaa danteena duwal maanu ahayna danteena laba diiday duqadii baarlamaanka ay barbaradaad ku qaaday yaani dawlad ku leexan arinta gabayga taxdaasi ayay meel walba isugu wareejiyeen dhalinyarada qurbaha joogto oo dhan meel ay ka soo helaan mageeysa iyagoo garanaysa cadalkii waxaad ka aragtaa wadannimada ku soo korayaan aad iyo aad bay maanta umad ugu madastaa arrinta insha Allah higsigeenu waxa weeye inaynu mustaqbalka fikir 20 sano 30 sano 10 sano ka bacdi Soomaaliland saado akaanaysa dardeed ma la xariya xashka laga qaadaya askariga dureys ma yeelanaya dawladdu heebid ma yeelanaysa dadkeedu mid wada basho noqonaya dadka qurbaha jooga ee la baqanaya carruurtooda xageenu geynaa ka waraacay dalkooda ma u soo xiisayaan ugu soo dhiirayaan ha hadda isna cadiyaan aad iyo aad